السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada aan idinkugu talagalnay waa talaado taariikhduna waa 1 Luulyo sanadka 2025 barnaamijkuna waa kii ugu horeeyay qodobada barnaamijka aynu idinkugu soo gudbin doono waxaa kamid ah Netanyahu iyo kooxdiisa dhinaca ammaanka oo si weyn uga doodaya qorshe la doonayo in xabad joojin looga hirgeliyo Gaza. Smotrich iyo Nikolay bin Gavir oo qorshaha si weyn uga hor yimid. Haddaba xaaladda iyo halka ay wax marayaan barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Waxaa sidoo kale barnaamijka aan idinkugu hayaa Masar iyo dowladaha deriska ah Israel oo la doonayo in hubka dhigis lagu sameeyo oo ciidankooda tayadiisa la dhimo sida ay wadaan Mareykanka iyo Israel. Haddaba Cabdi Fataax Al-Sisi ma yeeri doona arrinka mise waa su'aal taagan. Barnaamijka ayaan warka oo muhiim ah idinkugu soo gudbin doonaa. Waxaa sidoo kale barnaamijka aan idinkugu hayaa satellite-yada caalamka qaarkood ayaa qaaday sawirro ay ku muujinayaan in markaa dayactir durbaba ay ku bilowday Iran goobta nuclear-ka ugu weyn ee la yiraahdo Fordo oo kamid ah meelihii Mareykanka uu duqeeyay. Haddaba xaaladda guud iyo sida ay tahay iyo wararkaas ayaynu barnaamijkeena ku faaqidi doonaa. Inta aan ku jirno wararkaas wixii cusub waan idin la socodsiin doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. Ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. Xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka Baker Street ee bartamaha magaalada London. Halka waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halka ka howlgashay howladaynadooda waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena ugu horeeyay maanta oo talaada aan idiin soo gudbinayno. Haddaba qodobo muhiim ah ayaa barnaamijkeena ku jira, balse markan waxaa naga xusuusa maanta waxay ahayd talaado sida aad la socotaan. Talaadada iyo jimcahana inta badan qisooyin cusub ayaa waxaan soo geliyaa channelkeena qisooyinka. Haddaba qiso aad cajiib u ah oo aad markaa ugu heli doontaan dadka qisooyinka xiiseeya ayaad ka heli kartaan channelkeena qisooyinka nadaara laba. waa mahadsantiin. haddaba waxaynu ku bilaabaynaa waxaa socda dadaalo Mareykanka uu hormuud ka yahay oo la doonayo in lagu soo gabagabeeyo dagaalka muddada dheer ka socday Gaza. haddaba soo gabagabaynta dagaalkan ayaa waxa ay noqotay caqabad weyn iyadoo Israa'iilna ay meel taagan tahay, Xamaasna ay meel taagan tahay. Israa'iil waxay doonaysaa meel Xamaas ka maqan tahay hubka dadku ay iska dhigeen oo iyadu ay maamulato siday rabto ka yeesho inay Gaza noqoto. Xamaasna waxay leedahay hubkan inta aan noolnahay waa haysanaynaa oo Israa'iil ay gumaysanayso dhul Falastiin ay leedahay. marka hubkan waa hubkan isku difaacayn. iyaguna ha ka baxaan Gaza meelaha ay ka soo galeen. xabad joojin kombaleeda oo dhammaystiran ha la sameeyo oo aysan dib dagaal loogu soo noqonayn. xuduudaha waa inay furtaa. waxyaabahaas iyaguna ku haystaan. marka waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid Trump wuxuu ka dhigaa leeyahay wixii wax isaga uu markaa hirgelin karo uuna maaragtay dagaalka wadi karo, joojin karo. marka culayskaas jira leeyahay. marka culayska meesha ugu badan Trump wuxuu saarayaa Netanyahu si markaa isagu uu u aqbalo nabad. Netanyahuna waxa ku xiriira kuwa allow sahla oo aan nabad iyo waxa kan iyo waxba kala ogeyn oo caqligoodu jirin. markaasa waa kuwa la yiraahdo Smotrich iyo nimankan iyo halalaaye dadka hal dilo un ku haya kuwaasa ku xiriira. marka culaysa marka ninkii Trump ahaa wuxuu saaraa Netanyahu wuxuu yiri sheekada iga soo dhamay
carabtii oo dhan way qaylinaysaa dhibaato fara badana taagan adduunkii oo dhan qaylinaya marka dagaalkaasaa igu dhegana dagaalkaa iga dhammeey arrintii Iiraan waataan kula galay tanna marka waa inaa adigana dhammaysaa xujuu ku xiray wuxuu yiri maxkamadii la hadal aniga igu dheganayd ee gudaha Israa'iil iga furnayd maxkamadii 2 jeer uu la soo hadlay Trump uu yiri ninka laga joojiyo maxkamadda dhexdeeda marka hadda doodu ka socotaa in maartay hadalka Trump ay yeelaan in kala sheekada socoto marka ninkii Trump baalkii ninkii Netanyahu marka wuxuu bilaabay inuu marka kulamo bilaabo dadkiisa la yeesho si marka arrinka uga dhaadhiciyo sideen nabad u keeni karnaa haddaba marka aan idin soo wararkii ugu dambeeyay ee sheekooyinkan laga qoray Al Jazeera waxay leedahay Netanyahu wuxuu hogaaminayaa kulan amni oo 3 geesood ah iyadoo Washington ay ku adkaysanayso in la gaaro heshiis isdhaafsi maxaabiisha oo markaa ka dhaca Gaza haddaba joraalka leeyahay wala ay ka soo baxay Israa'iil ayaa wuxuu leeyahay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu wasiirka gaashaaniga Israa'iil Katz iyo abaanduulaha ciidanka Iyal Zamir ayaa maanta oo talaada ah waxay leeyihiin kulan looga arinsanayo sidii fikradaha lagu soo gabagabeynayo dagaalka looga hadli lahaa oo markaa golaha wasiirada kooban kadibna ay markaa ugu soo gudbin lahaayeen aqalka cad ee Mareykanka ayaa wuxuu sheegay in Trump doonayo in dagaalka la soo gabagabeeyo waqtigiisuna uu dheeraaday sida daraadeedna loo baahan yahay Israa'iil inay xal degdeg ah keento afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar Majid Al-Ansari ayaa isaguna sheegay in Mareykanku uu markan doonayo si niyad ah in markaa arrinka loo xoojiyo oo dagaalka loo soo afjaro marka Mareykanku waxay leeyihiin waxaan aan iska joojino waxaan waa lagu ceeboobay meel loo socdo mal nimanka Xamaas qaab kale iyo nidaam kale iyo dad kale iyo in lagu bedelo iyo laga shaqeynaa laakiin marka hore dagaalkan hal la joojiyo maxaabiista iyo waxa kan la kala haysto hal soo saarale dhanka kale marka ninkii Netanyahu wuxuu isaguna kulamo la leeyahay Smotrich iyo Ben Gvir iyo dawladda shirka kula nimanka inuu ku qanciyo waay ninkii Smotrich meel xunu taagan yahay Ben Gvir ku waa ka daran yahay waxay taagan yihiin dagaal mabal la joojinayo wax kasto dhaca maxaabiista la soo daayo waa rabnaa laakiin dagaalkan ma joogsanayo ee lagu soo deynaa maxaabiista ninka maxbuuska ka haysta soo wax ku soo deynaa haddaadan heshiis la gelin heshiiskan hadday raalli ka yihiin haddii kale waa laynaa kulligood taageen marka arrinkaasa isaguna ku dhaganaa leeyahay ninkii Netanyahu dhanka kale waxaan idin tusinayaa wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil Katz ayaa isaguna ka hadlay arrintan si gooni ah wasiirka gaashaandhigga Israa'iil ayaa wuxuu sheegay in ay markaa laga maarmaan tahay in markaa la soo gabagabeeyo dagaalka ka soconaya Gaza wuxuuna sheegay hadda in markaasi ay saansaantu sida ay tahay heshiis xabad joojina la gaari doono maalmaha soo socda sida uu leeyahay waan ayaa hadda kollay socoto leeyahay sida xaalku yahayna maalmaha soo socda in heshiis la gaaro ayaa laga yaabaa laakiin waxa soo dhan wax cad oo hadda miiska saaran oo qodobaysan oo Xamaas loo dhiibay oo ma jiraan waxaan oo dhan waa iska sheeko dadka qaar waxay qabaanba Trumpka laftirkiisu waxaan inuusan daacad ka ahayn oo adduunyadu maqashiinayo leeyahay waxaan ka shaqeynayaa nabad in la gaaro heshiis la gaaro kuwanina maalin walba 50 100 qof ay dilaan marka sheekadan in la isla ogol yahay oo marka ninkan uu iska dhigayo Trump nin nabad raba nimanka kalena ay diidayaan meeshii marka cadaadis uu ka socdo dadka in lagu maaweelinayo dad badan iyaguna sheekada qaba marka waa arki doonaa kullay maalmaha soo socda wixii warar ah ee soo kordha ee arrimaha ka soo kordha waayay waxyaabaha kale ee la yaab kale ee saakay warbaahinta aan ku arkay waxa kamid ah Mareykan iyo Israa'iil waxay u socdaan oo ay rabaan inay fooda geliyaan Masar wuxuu u dag iyo dam leeyahay ma maqli jirteen waxay u dag iyo dam leeyihiin inay Masar maartay ciidankeeda dhimaan hubka dhigis oo waxa kan iyo hubkan iyo aruursanaysa waxa kan iyo waxa dhan laga joojiyo
sababta marka waxaa leeyahay qaacido waxaa jirta oo maaragtay maraykanka u degsan iyo israa'iil dowladaha carabta ee dariska la ah israa'iil inaysan ciidan fara badanna samayn karin hub fara badanna samayn karin ciddii tallaabooyinkaa qaada oo gacanteedu dheeraato iyadoo aan la ogeyn waxaan la ogeyn soo gadata oo meelo kala tagta in markaa hadhow tallaabo laga qaado marka hadda waxaa leeyahay masar maalmaha dambe shiinaha hub ka soo gado meel heblaha hub ka soo galo dhoolatus ciidanka cirkaa shiinaha la sameeya waxaas marka macalinka weyn ma la tuso israa'iila marka hoos ka shidaysa waxay leedahay nimankan waxbay soo wadaan maraykanku marka hore wuu iska dhagatirayay laakiin hadda wuu kusoo biiraan leh maraykanku marka hore wuxuu lahaa wiilka meesha jooga waa wiilkeenne maxaa sidee waxu jiraan israa'iil marka waxa hadda jooga ka baqi maysaa lagu leeyahay kuwaan dhib kuma hayaano madaxda hadda masar iyo meelaha ka talaysa dhib kuma qabto inaysan soo weerarin waa ogyihiin laakiin waxa ay ka baqayaan waxaa lagu leeyahay maalin uun haddii afgembi ka dhaco masar waa saasaa laysku afgembinaa maanta dhan saas inta afgembi ka dhaco nin yahuudda nacab uu qabsado horay ka bilaabanaysaa marka waxay leeyihiin annagu kaasaan ka baqaynaa maan kuwa hadda jooga ka baqi maynay leeyihin haddaba marka aan idintusoo warbixin la yaab la jirirada la yidhaahdo ra'yul yowm waxay leedahay masar waxay ku jirtaa liiska istaraatiijiyad ay wada dhigteen maraykanka iyo israa'iil taasoo lagu bartilmaameedsanayo in lagu dhimo ciidamada carbeed weliba dowladaha ku xeeran ama ku wareegsan dowladda gumaystaha ee israa'iil haddaba sheekadu way sii socotay waxaa leeyahay wakaaladaha wararku waxay bilaabeen inay ka hadlaan in markaa arrintani ay jirto waxaa daboolka ka qaaday khabiir dhinaca arrimaha bariga dhexe ah oo layidhaahdo aliif sabaaq oo ka shaqeeya istaraatiijiyadda israa'iil ee maraykanka wuxuuna sheegay in istaraatiijiyadaasi ay markaasi mamnuucayso in ciidamo awood leh dowladaha ku xeeran israa'iil ay samaysmaan ciidamada masaarida ayaa hadda wuxuu yahay hadafka koowaad sidii waxa ay haystaanna looga baabi'in lahaa ciidankeedana loo dhimi lahaa israa'iil waxay leedahay maraykanow nimanka kanu waa soo xoogaysteen darisna waa ay leeyihiin hoosta iiga jiraan gantaal cusub keen taangi cusub soo gado diyaarado cusub soo gado hoostaydii ka buuxaan maraykan marka wuxuu leeyahay ninka siisi waayse wax kaa yihin adig magaase waxay leeyihin siisi ka baqi mayne waxa soo socdaa ka baqaynaa meeshaan hadda nimankan ha la sameeyo marka hadda waxaan leeyahay dadaalkaasay wadaan nimankii maraykanka iyo israa'iil marka sidii masaarida arrinkaa looga dhimi lahaa uu siisi ku aqbali lahaa iyo shacabku say ku ogolaan lahaayeen taas faraa ka taaganaa le sheekadaas marka aaday marka halis badan tahay marka qadar xaysiisa kadib waxaan galaynaa satalaajyada oo sawiro la yaab leh ka qaaday goobihii nukliyeerka ee iiraan sharikadda Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha casriga ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaan The View xaafadda Backlands jidka 6th Avenue City Park dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah waxaana uu ka kooban yahay sida 2 qol 3 qol 4 qol iyo waliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo laba dabaq oo isdul saaran waa nooca loo yaqaano duplex haddaba imika waxa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional kaasoo la magac baxay hoyga waa muhiim hanti yeelo kala xidhiir telefoonada shaashada kaaga muuqda ma jeceshahay barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada hab casri ah online ah adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada markaasuu daaru taqwa waxaa kugu baraya qur-aanka hab casri ah online ah maadooyinkaad ka baran karto waxaa ka mid ah qur-aanka kariimka higaada luqada carabiga iyo culumta shareecada isdiiwaangelintu way socotaa fadlan horugaad waxay faahfaahina kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda dugsiga markazu daaru taqwa kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii ugu horeeyey maantoo talaadaha weliba waxaynu maraynaa qaybihiisii ugu dambeeyey qaybtan waxaynu ku faahfaahinaynaa maraykanka hore waxau sheegeen 3 goobood oo nukliyara oo iiraan ay leedahay inay bambooyin ku garaaceen oo ay baabi'iyeen sida taraamiidya inta soo fariista uu ka sheegay waagaa wixii ka dambeeya doodaa taagneyd waa la burburiyey lama burburinin waa been waxaana xoog badnaa warka ah lama burburinin ee iiraan waxeeda waa haystaa
hadda marka waxaa leeyahay sawiro la yaab laha laga qaaday satellaydyada reer galbeedka ay soo qaadeen iyadoo katarabiilo iyo cagaf iyo kuwa godka qodo iyo dayactir meeshii lagu bilaabayba marka meel burburtay oo isku baaba'day oo la dayactira ma jirtee meesha wax gaarayba ma laha leey haddaba markaan idintuso telefishinka la yidhaahdo Al-Carabiya wuxuu leeyahay kuwa godka qoda makiinada godka qoda iyo baabuuro kale sawiro ay soo qaadeen satellaydyada oo cusub ayaa waxay muujinayaan in nashaad uu ka socdo iyo firfircooni cusub meesha la yiraahdo Fordo oo nuclearka Iran uu yaalo haddaba warbixintu way sii socotay waxa leeyahay sawirada ay qaadeen satellaydyada kuwaasoo ah kuwa cusub waxay muujinayaan dhaqdhaqaaqyo meesha ka soconaya oo markaa kadib markii Mareykanku ay sheegeen inay garaaceen isbuucii hore in hadda Iran ay meesha dayactir ku bilowday oo howsheeda ay wado hadda sawiradaasi waxaa qaaday shirkadda la yiraahdo Maxar Technologies oo markaa iyadu qaaday gelinkii dambe ee maalintii Axadda saakayna waa la shaaciyay waxaa la sheegayaa marka in meeshaasu ay ka socdaan dib u habeyn iyo shaqo ay ka wado Iran waxaana laga baqayaa in ay bilowday waxa la yiraahdo takhsiib uranium ama bacrimintii uraniumka in halka ka bilaabanayso sheekadaas marka waa sheeko cusub iyaduna satellaydyada qaada leey waxay muujinayaan Iran inay halka shaqo ka wado wax cabsi oo maba qabto Iiraaniyiintu ama markale la soo weeraraa iyo taas laftirkeeda su'aal ka timid meeshan Israa'iil way duqeyn jirtay sidee wax u jiraan marka maxay hadda u dayactiraysaa ma gantaale la timid meesha ku difaacdo maxaa dhacay su'aalo badan marka la iska weydiinaya haddaba dhammaan arrimahaas wixii fakari aragtay aqaabta noo soo qora barnaamijkaygii ugu horeeyay oo aan ku soo qaadanay wararkii ugu waaweynaa ee wariyaasha iyo wakaaladaha wararku ay ka qorayeen xaaladda caalamka gaar ahaan bariga dhexe inta ayaan ku soo gabagabeynayna like garay oo share garay barnaamijka fakarkaaga aragtidaadana qaybta comments-ka noogu soo qor barnaamijka haddaad ku cusub tahay subscribe ka iloobin YouTube-ka Facebook-na follow garay inta aan markale kulmayno nabadgelyo